wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland mudane Cabdullaahi Ibraahim Habane oo maanta shir jiraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa ka warbixiyay arday ka soo booday waxbarashada dugsiyada dhexe isla markaana u soo gudbay dugsiyada sare wasiir Habane oo shirkiisan jiraa'id ku weelinayeen agaasimaha waaxda kormeerka ee wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha waaxda dugsiyada gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashada ayaa soo bandhigay liis 256 arday oo si sharci darro ugu soo gudbay dugsiyada sare mas'uuliyiintan waxa kale oo ay ka warbixiyeen baadhis iyo dabagal ay ku sameeyeen wasaaraddu in tiradan ardayda laga soo dhex saaray dugsiyada Al-Jasiira iyo Maxamuud Axmed Cali ee Hargeysa kormeerka yeelinaya wareegtadiina waatan waa laga joojiyay dugsiyada inay galaan haday leeyma waa wax cadayna wax dugsiga galayaan total ma jirto waxa yeelay waxaan uga jeednaa cadaadin maaha ujeedadeen wax weeyaan ma sugi karayna tayadii waxbarashada haddaynan ilaalin ardayga iyo sifaha ku imanaya meesha tayo waxbarasho ma jirayso marka waalidkii dadaalayay iyo waalidkii kalena in la isku daro maaha waxaan codsanaynaa inay la yimaadaan hadday la iman waayaan iskuulka ma soo gelayaan xafiiska imtixaanaadku waa joogaa kormeerkii guud waa joogaa wax imtixaan ay gelayaanna ma jirto mustaqbalka liiskooga meel walba waa lagu dhajinayaa meel kasta waa lagu dhajinayaa imtixaankii naqligii baa laga waayay shahaadii baa loo waayay dugsiga dhexe ay kaga soo baxeen kii foomka ay kaga soo gudbeen baa la waayay qaar Maxamuud Axmed Cali waa rabiid halkuu rabiid ka soo noqday iskuulku rabiid ka soo noqday fasalku rabiid ka soo noqday keen waa la waayay waxa weeyaan arrintaasi markii si walba loo eegay oo dhinac walba laga eegay wax laga maarmi waayay in la shaaciyo oo dadweynaha loo sheego iyagana loo sheego laga maarmi waayay halka waxaanu ku soo bandhigaynaa baaritaanka aanu ku sameynay haddaanu kormeerka guud iyo howlwadaanada wasaaradda nahay 230 ilaa 250 iskuul oo Hargeysa gudaheeda kamid ah iyo gobolladoo dhan go'aankii ka soo baxay ama wixii khilaafaad ah ka soo baxay baan halka ku soo bandhigaynaa waxa galay 18 kooxood oo 18 gaari kala wata oo kooxdiiba ka tahay 5 qof iyo darawalka iskuul aan la soo marin ma jira hadduu primary yahay iyo hadduu secondary yahay public iyo private ba haddaba cawaaqib xumadii ka dhalatay waxa ugu batay dugsiyada ama labada iskuul ee halka ku yaalo midna public yahay midna private yahay public waa Maxamuud Axmed Cali kormeerkii tagay waxay soo sheegeen inuu dugsiga sare ee fasalada saddexaad iyo fasalada labaad 29 arday ay yihiin bilaa document sama waxa la waxay ku fadhiyaan tirin markii aan weydiinay wuxuu noo sheegay inay yihiin arday ribita dugsiyaduna way ogaayeen maalmaha baaritaanku socdo annaguna iskamaanaan xuluulana waxaan ku soconay amar iyo talo wareegtooyin dhowr wasiirku ka soo saaray waxaanu raadinaynay oo nu daba soconay dhawaaqii iyo baaqii ka soo yeeray wasiirka ee ahayd tayeynta iyo toosinta dugsiyada iyadoo aanu daba socono ardayda boodaysa iyo ardayda hadii beedkeeda dhacday hadana iska galaysa fasalada nooca loo yaqaano iska dhax fadhiye oo midaan meel u ka yimid la garanayno iska dhax fadhiye fasalkii iyo mid soo booday oo aan soo marin nidaamkii rasmiga ahaa annagu marka hawsheedii iyadoo sideedii oo qoraala oo kala baxsan oo aanu axadnay oo aanu anbaqaadnay oo aanan ku gafayn oo aanan xuduudeeda ka talaabin baan wasaaradda ku soo celin cidii ay khusaynaysay tiraba 2 jeer 3 jeer 4 jeer baa la yiri ku noqda waa intaas oo xisbadale ku noqda waanu ku noqon ilaa inaga gaadhayba maxaad naga soo noqonaysaan haddana shaqadayada waxay ahayd inaanan u joojin maxaad naga soo noqonaysaan aanu muujino samir iyo dulqaad iyo adkaysi Maxamed Bashiir Nuur Greek Ariel TV Hargeysa